عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه حاج وانفي عنا سمو ناكسني الحمد لله. شقة أدق بعد قبتين الله ما شاء الله. waxaan ku yiri oo qalabkan mayada loo xidhaa الله waxaan siiyay xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha iyo reer guuraaga. waaw bal waxaan ku yiri yaa kuma soo dhawaanaysa Soomaa xagee ka arki bahashan shinideed dhaqday baan ku hamiyay inaan dhaqo waayahay marka waxaan si bal xaajiga sida nacfi looga helo dhibteeda iyo de xaaladeedu say tahay ad soo ogaatid waaya waqti wanaagsan baad la soo kulantay haye maxaa yeelay berigii hore gaaguran geed ka qornay ayuu man geedaha sursuri jirnay haye 6 bilood 3 kiilo ka heli jirnay 3 kiilo markaan ka gurayna 3 kiilo qori daba intaan sidaa u gelino ayay deedna lagu xanaaqaysay aaga dadka jooga iyo xoolaha jooga ayay gam ka siinaysa maanta xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha iyo reer guuraaga ayaa gaagurta casriga ah na siiyay waxaan ku weydiiyay gaagurtan casriga ah iyo tan kale maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin tani hore ee gaagurtan geedka aan ka qoraynay ee casri ma ahayn waxa laga helayaana 3 kiilo yahay 3 kiilo wani ku sheegay tani casriga gaagurta casriga 15 kiilo bishii dheeraadkaas gaagurta casriga ay la timid xagu ka yimid baad u malayn dhaqashada casriga dheeraadka keentay dhaqashada casriga dheeraadka keentay waa waka walla waxa hadal waxaan ku yiri shaqada waan galayaa haye adaa igu macallina qofkii dadaalaya shaqaysanaya hal abuur samaysanaya xafiisku waa u diyaar waa soo garaacaya xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha iyo reer guuraaga khabiiray leeyihiin yaga lagu soo dirayo oo ku macnaynayo oo mar walba kula soconayo khabiir shinida u gaar bishiiba mar ku oo cilmigeedii leh ay